فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في العقيدة، waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanaه wa tacaala inaan kelimaad ka idhaahdo mowduuca si loo bixiyey fahmi alxayaa ama nolosha iyo fahamkeeda, garashada aynu garanno noloshan adduuniyo iyo waxaynu ugu nool lahay, waxaa ka ratibmaya acmaasheenna iyo waxaynu la qasdinayno. nolosha oo la gartaa waa arrin aad u muhiima. waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waalihi wasalam ah, oo aan aad u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaa mowduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan. waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray, dhoobo ka abuuray, dabeetana ruuxu ku afuufay. ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifat ullaahi fi lard, ama inii jaacilun fi lardi khaliifa. waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkii qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey, dabeetana bini aadamku uu doortay. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana, shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan, dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan. faabayn ayaa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala. dabeetana insaanku uu xambaaray ama se uu aqbalay. diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale, ee faabaadii ilaahay ibliisuu ku tilmaamaya lama nooc aha. waayo ibliis amar baa isaga la siiyey, laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin. inaa caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala. waa loo soo carday, waa loo soo bandhigay. iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda. ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo, deetana wuu diiday. waa mid labaadee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni, laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahay faashfaqna minha. iyagu istisqaaran bay u diideen, iyagoo isdhul dhigaya oo u arkaya inaanay qaadi karaynin. insaankuse wuu qaaday. shaygaasi ammaanada ee insaanku uu qaaday waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxal siiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa. maxay tahay? ma inuu alle caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen? sawka ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya ثuma اstawىa ilى الsamaaءi wahiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karha qaalat aataynaa طaa'iciin. iyagoo muطiiciin oo caabidiin lilahi subxaanaه wa tacaala u ah. sawka ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. kuwaasoo dhamme alla ay caabudayaan. tusabixu lahu السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
إذن كون كودم إلهي بعابده سبحانه وتعالى وما حيوحك قد السيء هذا حوك قد السيء ما ينو عاقل يهي سوك القرآن كنت الماما يماها نولك لو الدنيا كن نولو عقل لين الجيران بل قصة سليمان سوك القرآن كنت الماما يماها إن شمبر وكسو الرميي ملكة الصبا هي قضايات كيدي يردن يا إله غير كيني عابدن يا وحاص يردن يعني إنه فهم يي ما حوله يا ومن حوله قبل داسية وحا غير كذا تشوقي وحردن إنه وذكرني بل يسوك هدود كتلمام يماها يعني ميانا هين حقيقة وإنه فهم يي كون كان يا وحيابا كالصعودة يدد كان وحي صبين يا وحا صردن maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba may xayawaanada ijtimaaciga caalamku ay ku badan yihiin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxdad doorasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysataa ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku وهدو كو غوليستana inuu janno galo haduu ku khasaarana inuu markaas naar galayo waxaynu leenahay waxa Allah subhanahu wa ta'ala marka bini aadamka siiyay imkaaniya ficl alkhayr wa shar ama inuu shar iyo khayr ba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin lit'adhib wa ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiican ee la isugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee la isu itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee la isu itixaamo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati dunya bisamawatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo waa ka alla quraanku leh subhanahu wa ta'ala وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدا أي عركا أي دولكا أي وحن ودم يودسي وحن لأن وحا علاقة إنسان كي الزمن ككدحية جيري أي النلال أي تطور كان ترى بدل لو بني آدم كمرأيه ودمانتي وحا لوغو طلقالي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحين لنا إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كردقاي متفهم يكون كانوا كنوا لي وسميعا بصيرا بو كردقاي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه با إلهي سبحانه وتعالى إن لا اتحامه درادد بلا وحين لنا عالم الغيب إي عالم الشهادة با إلهي نولا شوقي به wax la arki karo iyo wax qayb oo maqan
وحسيد الله قد جاين بني آدم كلا يتحامل هذا وحول يبقى مشاهدة وحول باين ده ضدك وصار لها امتحان كوس كيران كاري لها